nimankan badda ayay ku dabaalanayeen agtoodana waxaa ka soo buuxsamay malaay badan iyo shimbiro duulaya laakiin si lama filaan agtooda waxaa ka soo baxay libiri aad u weyn oo ay ku sigteen inay afkiisa ku dhacaan You're gonna have to do more to clean that wetsuit. I knew that was gonna happen. Oh shit! I knew it was gonna happen. Fucking they start coming up, I was like, dude. There's either sea lions chasing this. soo dhawaada asxaabta magacaygu waa Maxamed Nabiil kuna soo dhawaada channelka Maanta Plus dunidan waxaa ku nool dad ka badan 7 bilyan oo qof maalin walbana waxaa ka dhaca shilalka gawaarida guryo soo dumay iyo waxyaabo kale oo halis ah dad ayaana ka badbaada kuwana waxay ku noqdaan haddaba maanta muuqaalkan waxaan idinkugu soo gudbinaynaa dad aad u nasiib badan oo waxyaabo halis ah ka badbaaday intaan u gudagelin haddii aad ku cusub tahay channelka Maanta Plus subscribe si ay ku soo gaaraan muuqaalada cusub hana hilmaamin inaad la wadaagto asxaabtaada ninkan muuqaalka duubaya meel cidla waxa iskaga hor imaadeen libaax wax uu sameeyay ayuuna garan waayay muuqaalkan ayuuna duubay Hey Mr. Mountain Lion, how are you doing? Nice to see you. Nice to see you. I am much bigger than you. I'm way bigger than you. Go! Where are you going? Okay, this cat is coming back at me. This is unbelievable. There's a mountain lion right here. dunida meelo badan oo kamid ah waxaa ka sameysma godad aan la garanayn waxa sababay meelahaasina waxaa kamid ah dalka Japan bishii November 2016 waxaa ka sameysmay wada bartankeeda god aad u weyn oo aan la garanayn waxay sababay midda la yaabka noqotana waxay ahayd dawladda Japan godkaasi waxa ay ku hagaajisay muddo asbuuc ah oo dawlado badan oo maanta dunida ka jira aysan ku sameyn lahayn oo ay ku qaadan lahayd godkaasi inay hagaajiyaan muddo 2 bil 3 bil ilaa meelahaas oo kale dawladdeena Soomaaliya maxaa u maleynaysaa ちょっとあれに送りましょうか。うわドカッとやっぱいったな。そうだこれうちも場合によっちゃ出るまだこの辺は大丈夫か。
meelaha ay isku gooyaan waddada caadiga ah iyo waddada tareenka, dad ayaa marka ay calaamaduhu muujinayaan in tareen uu soo socdo waddada gooya. madax adeeg miyay ka tahay mise way jecel yihiin halista? bishii January 2019 haweeney ayaa waddadan goynaysay. Calaamaduhuna waxa ay muujinayeen in uu tareen soo socdo. laakiin tallaabtii ugu dambeysay markii ay ka qaaday waddada, tareenkii ayaaba ku imaaday. aad ay u nasiib badan tahay haweeneydan. Allah subxaanahu wa ta'aalana uma qorin in ay meesha ku dhimato. waddamada qaar waxaa ka dhaca dhulgariiro aad u xooggan. allaha naga haye waddankeena kama uu dhaco, laakiin waxaa lagula taliyaa dadka la kulma dhulgariirka in ay madaxa meel la galaan, ha ahaado miis iyo waxyaabo kale. muuqaalka aan soo qaadanay waxa uu muujinayaa laba haween. haweeney dukaanka iyo waxa ay ka ahayd kaashier, haweeneyda kalena waxay ahayd qof wax ka gadanaya dukaanka. hal mar waxa ay la wada kulmeen dhulgariir. haweeneydii wax gadanaysay way garan weysay waxa ay samayso. haweeneydii kaashierka ahayd ayaa gacanta soo qabatay miiska ayna madaxa u gelisay.